uur ayuu u yeelay wuuna ku inkiray cunugii caloosheeda ku jira. kadib maxaa dhacay arrintaas kadib? assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta kusoo dhawaada mar kale warqaad journal. waxaan ka hadlaynaa arrimaha bulshada. waxaana uga hadlaynaa arrimaha bulshada wax kale maahan. marka aragno qisooyin xanuun badan iyo dhacdooyin aad la yaabto aad waa inaad ka hadashaa. fadlan horta muuqaalka hadduu kusoo gaaro youtube-kiina subscribe please, waa codsi taas. kadibna sii shaargareey oo like-tana la wadaag haddii aad ku qanacdo muuqaalka. mahadsanid. marka xigto ila daawo muuqaalka. wuu soo baxay adigaana saan yeelay muxuu inaa waxaa rabaa aad cidanada aad iila hadasho ood arrintan aad igu qarinin oo arrintan cunug adi adhasho xalaal waaye aad igu inkirnaa rabaa. ninka asaga ahaa wuxuu dhahay 2 isbuuc kadib waa kula soo hadla. wax saa loo dhibaataynaya maahan gabar shisheeye ah, maba ahanba gabar shisheeye ah ee waa gabar Soomaaliyeed. waxa sidaa kale u dhibaataynaya maaha nin shisheeye ah, laakiin waa nin gayaankeeda ah oo intuu jacayl been ala jilay kadibna aamintay kadibna meher xaday kadibna silciyey uur u yeelay kuna inkiray. subxaanallah. ragow in ragow xagee u socotaan waa la yaaban yahay. haddaba gabadhan waxaa sidaan yeelay waxay ahayd wiil Soomaaliyeed. ugu horeyn waxay ku ballameen in 4 bilood gudahooda ah ay isu guursadaan, laakiin ballantaas asaga daacad kamuunan ahayn. ujeedkiisana waxay ahayd inuu intuu macaankaas banaanka ku dhuuqo wixii khayr iyo faa'iido ka yimaadana ayada ay qaadato iyo khasaaraba ayadan isku siiyo ayaa ujeedadiisa ahayd. waayo waxaa arkaynaa haddii ay gabadhan ninkan uurka u yeelay uu rabo inuu wanaag iyo qurux iyo farxad uu kula dhaqmo oo reerkeeda si fiican sharaf uga doonto markii horeba ma hadin. marka labaad markuu ogaaday inay owlaadiisa ay caloosha ku wado, hadduu xaajo iyo dan uu ka leeyahay owlaada bista, reerkii wuu u imaan lahay wuxuu dhihi lahay walaalayaal qalada iga dhacay, gabadhan anigaa qabay, haddaanan hadda waa kala tagnay ama waa isla joognaa, xoolama haysto dadkii usoo bandhigo, ama waa furay gabadhan ogaada aniga reerkaasa ka dhashay xoolama haysto. cunugiisiina uu wari dhaqaaleysto ama qaato ama uu si on ka yeelo. laakiin ujeedadiisa intaasba ma ahayn. ujeedkiisa waxay ahayd inuu gabadhan helo kadibna uu ku danaysto kadibna uu ka dhaqaajiyo. bal ila daawo muuqaalka heerka ah. faraha ka qaaday 2 beri kadib haddana waa wacay markaasuu dhahay ani ma dhalin cunug asaga ahaa. miyaadan hadda qof muslim ahayn oo ana wax kale kuma aaminin. kitaab quraan oo iigu dhaartay, kitaab quraan aan ku aaminay. waxa uu sidaan u dhibaateynayo waa gabar Soomaalida walaashiisa. asaga ma rabaa in sidaan loo galo walaashiisa? su-aasha waa maya. asaga ma rabaa midda asaga u dhalay in sidaan la yeelo? ma rabiyo. asaga beri nafsigaas xakuu ka geli doonaa. kulley balaayo meerta allah watii soo baxdee ma walaashiisa ugu samayn doonaa ma gabadhiisa lagu samayn doonaa yaa lagu aclam. laakiin waxaan kuu hayaa in uu ilaahay uu mataqaana xaqi soo ifiyo uu ninka uu maalin ka soo bixi doonto. gabdhaha Soomaaliyeedna maalin dhaweyta waxaan fiirsaday muuqaal aad iyo aad iyo aad la yaabay. muuqaalkaas aan la yaabay wax kale ma ahayn. waxay ahayd gabar Kenyaan ah oo ayada dhan aan muddo ultiir oo rinji madow la mariyey oo aad iyo aad u madow, madax tima aan ku lahayn, xiiran ayada dhanba ul dheer aan lahayn, jir lagu raaca aan lahayn, qurux lagu raaca aan lahayn, dabeecadiida aan ma sheegi karo. laakiin laga bixiyey 500 oo neef oo lo ah. waa 500 oo neef oo lo ah laga bixiyey. gabar muslimada oo qurux badan oo wanaagsan oo caraf badan oo qubaysata oo ilaahay taqaana oo diin taqaana oo tukata mid bilaash iskaga wadanaa midaa gacanta ku dhagaya oo iska kaxaystaba oo iska dhacdaydana
6 bilood soo haystay sanad soo haystay oo soo afurwa Soomaaliya waxaan ku jirnaa waliba koonfurta waxay ku jirtaa magaalada kaliya ay laga helayo 12 jir garoob ah oo ay 3 nin soo fureen ama 2 nin soo furtay maxaa sababay ma jahliba ma aqoon daraa ma cilmi daraa maxaa sababay in gabar 12 jira intii la guursado waliba la soo furo bal muuqaalka ila daabo ilmihii yarkahay maxaa ku dhacay dhamayso muuqaalka ilaa dhamaadka ilmihii yarkahay ee caloosh ku jiray ee saqiirkahay ee xalaashahay ee aan dambi gelin maxaa ku dhacay gabdho badan wiilal badan ay la ogaay waa familkanaga waa qof kala saaxiib anigu uma sheeganin gabdho walaalahay la igula taliyo gabdha walaalahay la igula taliyo inaan banaanka iska keeno cunigaas waayo wiilkaas ama wacin baan aniga lambarkiisa balaaga iska saar samaho waayo ilmihii yarkahay waa la soo dilay waana la soo xaqay banaanka loo soo bixiyay ugu dambeyntii dambigaas yaa leh ma hooyada leh ma ku kula taliyaa leh ma gabdhiyaa leh hooyadan waxa leeyahay ilmahaagii xalaashaha ee caloosh kugu jiray waxa u dishay inaan lagu caayin oo lagu dhihin wacila siday subhanallah wacil ayaa siday ayaa u dishay ilmahaagii ka xumaa aabahaasna wuxuu galay dambi weyn oo ilmihiisii ayuu dil u horseeday oo ka dhaqaajiyay muuqaalka maro inta kasii bato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sii sheegareeya oo gaarsiiya Soomaalida digniintan inaan marnaba dumarka lagu ciyaarin ragow dumarka ku ciyaarin